وحالك كسر ويايا سفير كحجينك جعفر جامع بنلكس يوروب دولة فدرال كصوماليات وحان آد كسر وياها دمان أنت ماشي عن ثمد نقول شرفتي إن نقرأ قيب قادته هو شيء نتحل كيجا على بحيي وهول قرن وهول أيسن فهم كرين قف والبق وعيو نحل كيجا معناه هذا هول ندرس هوا وتقانين وإلمها وحد وبتجلس إرفنس هول ندرس إرفنس أو قرن واحد ودقالة جوري قرن والدولة الصومالية dhistay waa hore hadda naga burburay aan rabno aan qayb qiimo leh oo mug iyo miisaan ka qaadan waxaan marka rabaa saas darteed idin wada mahad celintiina juhdiga soo gelisay ka qayb gashay waxaan si qaas u mahad celiyaa ganacsato dhalinyaro Soomaaliyeed Holland degan iyagana qayb runtii wax aad iyo aad looga mahad celiyaa كل تاسن هو برنامج كوجر تا مرة بينا كسي ديرادو وحان يجنا سود وياها يا جاليد بلجيم يجنا قرتي إن أي ولا أود أو يجنا هوش هرتود بلاوي أي هرتا وسو أي كلا سوق أي خاطر أنا جنا إن شاء الله لوليا ربنا برشة إن حاجة نمانو بايدي نمانو waxaan kaloo aad ugu mahad celiyaa guddi isxil qaamay oo golaha la baxay maalintii ay safiiradda waddanka timid arintan way noo soo bandhigtay waa ka aqbalnay guddi ayaan samaysanay golaha la dhaho idinkoo iga raali ah golaha intii ka joogto waxaan rabaa inay soo istaagto oo aan bal horta maxaa la dhihi jiray ishaga aragtiin dadka hawshan wada ruqyo kaligeed ma wadin cabdimaalik ma wadin dad group oo isxilqaan iska wuxuu qabsaa anaga dhijir laakiin hadda dadkan cusub waxay dhahaan isxilqaan oo isxilqaamay urur ma wadin hay'ad ma wadin annaga iska bilawnay runtiina bila ma ahayn maalin ma ahayn maanta meesha ay joogto sanad iyo wax la jira soo waana alxamdulillah gabagabay maraysaa ilaahay idinkiis waxaan rabaa inaan hortiina golihii ka tuso oo aad horta noo imaatiin nala arko war badan hadal badan hal ma buuxsho muhiimka wuxuu yahay Soomaali haddaan nahay waa naga burbur waddanka magac iyo mansab waxaan leenahay markaan annaga waxayna dhisano inay gacanta noo taagnaato waxa ka fiican inaan muruqayna ku tashano midda aan rabnana hadda waxa waaye inaan sharafteeni iyo bilicdeeni soo celino marka nin labisan أو نين دولة دن أو قروح بدن دولة الصومالية جورجيدا وأبلسيها شرفي نوته إنا جورجيدا صدق يدور سنة بربرسيه سفارة يوم مثلا يوروب كتير وحان قرناي إنه هو إكال سفارة ده هكذا فقير لماذا الله ما تشى واحد بس إسكنيكتو أنا فقير لماذا أنا في وجه ما كدري أنا كقروح بدن بمحل يجري شخص سيدا أنا هاي أو رنتي دولة سوكب سيسانا لكن هدان استوسنو تدكينا يوروب يمد جالس كهلاي وحقا وكرو إنا نقرب كودو استياغنو مركا كولي صدق قفان كوكوبنين ساوجه دين داد بدن هذا مجوغان وقار هوشي بكو جران قار واقوانا قار كلا أرمك لو عن محل يجري شاك ما أنت صوغ لأي أود مقيهن مركا إذن كان قار واحد نجح نسين الله عافيه إذن كان واحد دكعود سينا inaad saas noola fahamtiin feestay ورك مرة بينا بديو حفلة meesha ku jirto
إن شاء الله وحان رأينا ننتاس بسوق قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. دمانتينا ولاalaha Soomaaliyeed caawa halkan isugu yimid munaasabada loo soo abaabulay taakuleynta dhismaha guriga Soomaaliyeed ee dalka Belgium. waxaan caawa halkan uga mahadcelinaynaa dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ee reer Holland isku soo abaabulay kulankan annagoo ka nimid waddanka Belgium anigoo matalaya jaaliyadda guud ee dalka Soomaaliyeed dalka Belgium. waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa intii isku soo dubariday munaasabadaha quruxda badan oo guriga Soomaaliyeed in lagu dhiso lagu qurxiyo soo suurtagelisay annaguna mataqaanaa safar dheer u soo galnay sidaan u garab istaagno. waxaan dhammaan walaalaha halkaan ila joogay inta ka maqan ee reer Holland ama Soomaalida nawaaxiga Holland degan aan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan gacan ka siiyaan sida walaasheen ay sheegtay soo celinta muujinta magaca Soomaalinimada waa wax maaragtay taariikhi ah oo dhaxaltooyo u noqon doona ilmaheena iyo kuwii jiilasha naga dambeeyay. waxaan rabaa inaan fahansiiyo Soomaalida halkan isku timid caawin guriga safaaradda Soomaaliya ee safiirka iyo safaaradda labadaba dhulka ay ku yaalaan ee waddanka Belgium gudihiisa waxaa iska leh dadka Soomaaliyeed. waa dhul Soomaaliya ay leedahay waa qayb macnaha boos sida asagoo Soomaaliya ku dhex yaalo kala waddanka Belgium ku yaala. waa inay dadku taas fahmaan oo aysan ahayn dhul ay kiraysanay. waa dhul ay Soomaali leedahay. qofka Soomaaliga markuu dhex taagan yahay 20kaas mitir gudahooda lama taaban karo. wuxuu ku jiraa magangeliyo wuxuu joogaa dhulkiisa Soomaaliyeed. marka waxaa muhiim ah in arrintaas aan fahanno oo gacan ka qaadano. waqti dheer ayaa annaga haddaan reer Belgium nahay iyo walaalaha reer Hollandba dhismaha iyo nadiifinta safaaradda aan u soo marnay waqti hore dheer mataqaana iyadoo qaxooti ay degan yihiin ka soo bilownay inaan ka rarno ilaa maanta heerkaas ay maraysaa waa guri Soomaaliyeed. marka waa mahadsantihiin caawa halkan. marka waxaan ku wada joognaa jaaliyadda guud ee dalka Belgium ee Soomaalida oo weliba garbaheeda iyo xubnaheeda ka tirsan oo halkan dhinaca midigta iga taagan yahay gudoomiyaha qaybta dhaqanka. jaaliyadda waxay u taagan tahay Soomaalinimada iyo weliba gaar ahaan nooleynta dhaqanka Soomaalida. jaaliyadda qaybteeda dhaqanka ee hiddo-dhowr waxa ay waddanka Belgium ka qabataa in afka Soomaaliga ilmaha Soomaaliga loo dhigo ay bartaan ayagoo afkooda Soomaaliga hooyo qori kara mataqaanaa iskuullada kale la qabsan karaan. waayo waxa weeye qofku markuu afkiisa hooyo qori karo ayuu wuxuu la qabsan karaa luqadaha kale. ilmo yaroo hadda maanta kuwa dhex jira shahaadada Soomaaliga manhajka Soomaaliga lagu qoray ay dhowr ay shahaadooyin ku guddoonsiisay. waxaan halkaa markaa ku soo koobayaa warkayga in arrintan caawa halkan isugu yimid aan taageersanahay. annagana haddaan reer Belgium nahay jaaliyadda laftirkeena waxaan qaban doonaa midaan mid la mid oo ayadana maaragtay qayb qaadashada dhismaha guriga waa mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان وما ينك سوف ينقل دمان مستشارة سميشة كسرة كشيء ووجه سفير كحيانك قدي المقابلة مستشارة فنانين ميدياها دمان ذات كميش كي مالي وحنا كسود هذا مالي الدرهاخ أنا أقول هذا ما يعود كسوليكا أي اللي كسود هذا حفلة أو سبوت المسمى جورجا سفارة الصومالية. إن شاء الله تعالى ما يصير لي لما تيجي حفلتهم أو القبضي جيكلي القبضي من كسرهم كان معي كنا هذا سيدي. أنا كنت هو مجال جاليد أوروكسونيكا ما يصير كلها كنا هذا حفلتهم. وسفير وقتها مجال الدنهاخ مجال الأولى بدوائي
بيس لا رواية إن شاء الله تعالى ورقصني كهو يرسل بشاغة وما يبغى كنا Somali Netherlands Cultural Association الله رواية نقل كإنتهى برواية مركب بيسين إن شاء الله تعالى ونقاسم كمان وسبيع إن شاء الله تعالى هذا البلد من المهم مركز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waa salaamantihiin waxaan rabaa inaan anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha Efsan Cabdifataax ayaa la rabaa caawa inuu ka soo qayb galo laakiin waxay macnaha daran gaar ah oo la soo xiriiray ayuu u imaan waayay marka muxuu ahaaye kulligii salaan ayaa idinkaga wadaa sidaa la socotiin guddigii hadda loo wacay ama guddigii hormoodku ama dhismahan safaaradda ah ama waxa waaye ururka Efsan ayay ka wada socdaan qolooyin gaar ah oo guddiga jira hataa guddiyadii hore 10 sano ka hor macnaha dadka labeynta u ah arrimahan hormooda waxay ka socdaan macnaha ururka muxuu ahaaye Efsan marka aniga hadalka ku dheeraan maayo dhaxalka sida loo sheegay qof kastaba dhaxal waa dad ayaa waxay leeyihiin safaaradda ayaan wixsiinaa laakiin ogow inuu gurigan yahay dhaxal kuna talagalay inaan muxuu ahaaye sida sheegeen heer Belgium. Salam alaikum. وعارضتي فرحت وين إنه إن عاو حفلتها قروح البلد أي كالين وين أي كقاتين كنا ستدا كربين التاجر وعجعلها إن مانتين إن سحب كسينو وسحب. سيدو كله أمين وعجعلها إنه قرب كيسوس تاجو حمامين. waxaan rabaa inaan dhammaanteena u mahadcelino shirkadaha ganacsatada ah oo caawa xafladan quruxda badan kaalintii weyn ka geystay waxaan rabaa hal iyo laba inaan weydiiyo ugaas caawa maxay ka dhigan tahay inaad kaalin weyn ka qaadataan dhisidda safaaradda Beljimka ee Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانة السلامة الصحيح قرياشة يقوه الريان سفير كرجانكا walaalaha martida reer Belgium looga yimidna waa salaama si qaas ah dhammaan inta ka soo qayb gashana waa salaama aniga hal dardaaran ayaan rabaa bis inaan ku gooriyo dal waxaa dhiso ganacsatadiisa waxaa dhista shacabkiisa gurigaan gadaasheena ku yaallo caawa aan noloshaan isugu imaanay wuxuu wax ka sugaa waa ganacsatada aan annaga ugu horreyno marka annaga diyaaraan nahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaa inay ganacsatada gacan buuxiya ka geysan doonaan gurigaasoo qurux badan oo wax balan noo ah Soomaali ay ku faanto oo dhaqaale Soomaali ay leedahay ugu dhiso oo mataqaanaa qofkii xoog geyn karo qofkii dhaqaale ku bixin karo insha Allah qabanqaabiyaasha waxaan leeyahay mataqaanaa ugu liibaan dhammaantiin adinkana waa mahadsantihiin maqashaa meesha ugaas waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo saaxiibkeen Ridwaan oo runtii howl aad u weyn qabtay maalmihii la soo dhaafay iyo magaalada Rotterdam Ridwaan dadka kale ee ganacsatada ah ee raba barnaamijkan inay ka qayb qaataan fariin noocee u diri lahayd علينا العقد اسكت فيها horta aad iyo aad umahadsantihiin adiga imaam rafiiq iyo tiimkiin inaa halkaan ugu soo dhaweyseen oo namarkan oo fursad siisa inaa xataa ka qayb qaadano taas xitaa waxaa igala ficnaa lahayd xitaa social media inay xoog saartiin si oo maanta dadka oo Soomaalida ay u gaarto message-kiina waxaa uma leedahay xitaa meesha inay aad u muxsami lahayd marka aasla wada shaqeyno Ridwaan waa mahadsan tahay waxaan rabaa markana inaan u dhiibo Cabdi Cali Sow oo aad wada garanaysaan Cabdi Cali Sow runtii program walba oo la qabto waddanka Holland kaalin weyn ayuu ka qaataa waa ganacsada weyn waxaan jeclaan lahaa isagana laba inuu ku dhaco xafladan quruxda badan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله كمان ماشي صوت فيك كمان يمكن وعس كل هذا البدل ما أنا وأنا كل هذا البدل ما أنا قادر إني سامعني أنا كان أسكت وشيء دوان أنا سي تقدر تقول حالة كذا ما يطلع عليه ديوان بين سوسايتي سيدا أنا بس وشيء أنا سفارة سومالية وكمان سومالية سأستند إذا أنا عاوز أنا أقول بس تقدر هذا الناس اللي ما عبد العالي شو هذا هو ما سنتين dadka qaar waxay leeyihiin gender balance fiiri
caasha rabo markaan aynagu soo dhaweeyo caasha waa farobareeda runtii howl weyn ayay qabatay asxaab badan ayay gaarsiisay barnaamijkan caasha caawa waxay kaaga dhigan tahay برنامج قروض بدل وكالة وين أجد كيستين أدي أتين كلا عسكر الصومالية. بسم الله الرحمن الرحيم. أدي هذا من الستينات والكبرى. إلهي سبحانه وتعالى بركبرينا قروض بدل نحل توي واعي. مش هقول راك بدل نقول مسجد لين الصومالي وصلت من العيال كت كلهم. مركز إن شاء الله بإذن الله كل كستو صومالي. لعك هي رات حبطنا توي الربا. أنا قلت مش كي يسوي شيء ويلش أنا وقت كم قل لكن إن شاء الله واد ذلك. مركز حرجينا يا بإذن الله كل هذا كلنا بعد حلتويو قف كستو صوماليا إسكالي لما كل حيو إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلت وحروا ما مرقية إلى ما مرقية تيم كان وتيم كيدي وحا على جعل بدنا كذي جرت ما مرقية سنو. ما صلتاي ليبان حتى أكو هالليبان. وحواي يا بدنا بسوي جيده هاي هل سنة هاو شاب كجرني دت بدن أو وعنا دت بدن أنا كبرتي لكن سيد فضوط أي أنت عندما تظهر تاجر أي شمس على إسكان بقطع ملاينا ما ينو وحالي يشك درين قوري كليه درين كمان العقد يديبان كليه إن يقف والباء يكتوه أو مركي وركع مش جاي أي سكال يلاو عاش سفر يكون والله بالله وحال نقول أنا أنا ما يقول وقاس كان نقول إسلام مركي أقبش والله ين هذا السؤال ما هرتي شيء تحت العقل يحط المال أنا وحق سوجي الصومالي أنا يروح بديه أنا فاهم سنين قريجان مرتوا قريجان وحنا كان وقريجان إنا هرت فهمان حتى بيرجع أنا بيرجع طلع مساعدة حتى بيرجع نتو أولادي إسكال إنا هرت قريجان وفهم مركز سام فهمي كنا وحاول طبعا مركز أنا رومتي رضوان كلمة إن هذا يقدر يسوجي ذاتي وحاول أنا وحنكون فرح سنة العقد عندي وكما فرح سنة كليها وحنكون فرح سنة إن المال يجري أركان مع الشركتين الأوروبية هاي ناخن وسهل معها قفت السنة ما فهمت أنا رضوان يلقي جواي هذا الواقعي كرتي أصلا كوجا رمتي ويلكاس محل أمين إسماعيل ما هو الدقيم ما شاء الله إله كرتي أو السجا يوم فهم الكيس أو ربا أقول أو يوم هو ينيس كوكين أو ينيس كوكين أيوة ما ترى شيء أنا قبل مركب بدأ أن حتى ليبان حتى هو شرح هاي أنا أمين وحيتا إن أنت أنا كأهدان هالوحدنا كبكرنا ولا ريالو وايو أنت أنا قفت وحن كقيمة يا وحن وحو أركض وحادو أركض وحن لذا ده أنا لك أرجعنا نهان أرينا أنا جبنا عندنا ميلاه كشين ويكل فقي لما ميلاه يكل تاجيه مركز سومالي أنت هدان جو واقعا أو ندها يترام قشين أو توجن ندها أنت مركز جو نوعين هلا أنت مركز جو إني وحي نهين نعقادم إن أنا كهذا المحياة قاركود إن وحياة قاركود إسكالوي إن المهينا إن مدني ذبر آتي هذا ما تسمى السلام ما مرقي وما سنتا يا أصحابنا جمع كان أو كميديا هاي محمد دير حمزة ترسبورت الصعب كسية سيرو كله وحصعب كسيسان محمد شمس عريس وأصحاب تاني يتاجرياش اللي ماشي جولان محمد شمس الشعب كسية ليبان كونسلتنسي ليبان مصطفى ويسجل نجم كان محمود واقع أيضا وحجلان أيضا ميتين أو سكسية برنامج كغيرتنا أنت سامسون كبيرين أرمتي هذا وما سنتي أصعد البقايا ما يدعم ما قفل ما يقولون يوان محمد مين سنو هاو سنوهاي عاو هالكا وفرح سنة إلى إماد كوف سومالي بدن ولي أنا كنين سومالي دي لو حاول شيء إنك عم تسكب سنو أو ميدونا أو جاليدا سمعت عسل بسنو مركا سيدا أيه ونوع ترت وما سنتا Target
anigoo inkaga wada salaan danjire khadiija cusufle cali oo caawa xafladan aan ka soo qayb geli karin iyo howlwadeennada iyo diblomaasiyiinta safaaradda waxaan ku bilaabayaa inaan u mahadnaqo dadkii isku xilqaamay in ay u istaagaan dib u dhiska iyo dib u yegyeelidda hoyga danjiraha safaaradda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dalalka Benelux. barnaamijkan oo halkudhagiisu yahay dhaxalkaaga dhowro waxay tahay barnaamij ay u istaageen jaaliyadda soomaaliyeed ee dalalka Benelux oo ay hogaaminayso jaaliyadda dalkan Netherland oo ay ugu horeyso marwo ruqiyo cadow oo dadaal iyo juhdi badan gelisay in ay u istaagto in gurigii Soomaaliya mar kale dib loo dhiso iyo sidoo kale dad badan oo ka mid ah arrintaas qabanqaabadeeda waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ganacsatada ayaguna qayb weyn iyo kaalin weyn ka geysteen in ay ku tabarucaan hantidooda si dib loogu dhiso howlgan sidoo kale waxaa u mahadcelinayaa dadka ayaguna sponsor gareeyay xafladan sidoo kale waxaan la iloobi karin artistayaasha da'da yar iyo artistayaashii hore oo ayaguna isku istaagay inay arrintan kaalin weyn ka qayb qaataan waa u mahadcelinaynaa oo caaway waxaa loo yimid ugu weyn waa joogitaankooda iyo imaanshahooda marka aad u mahadsantihiin adinkuna inaad ka qayb qaadataan arrintan dabcan waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo ahmiyadda ay leedahay isku imaanshaha iyo isku duubnida jaaliyadda dadku hadduu isku yimaado dabcan waxaa ka dhasha arrimo aad u leh ahmiyad oo ay ka mid tahay waxa midayn kara oo hadda ah guriga ay leedahay safaaradda Soomaaliya ama dalka Soomaaliya dabcan sidii horey loo yiri gurigan adinka iska leh annagu adinkaan idin adeegnaa haddaan nahay safaarad marba cusub ayaa yimaada oo bedela kuwa jooga laakiin adinku waxaad tihiin hantidan iyo dhaxalkan dadka uu u harahayo marka waxaan idinku boorinaynaa in aad dadaalkiina meeshan ka wadaan siina laba jibartaan si dhaxalkan ilmihiina iyo ilmahooda ay u noqdaan meel ay ku soo hirtaan dabcan horey iyo hortayna waa looga hadlay waxyaabaha isku keen xira ama joogitaankeenna iyo jiritaankeenna qayb weyn ka qaadan doona ayaa waxaa ka mid ah in aan sare u qaadno dhaqankeenna iyo afkeenna hooyo ama luqadeenna dabcan hortay ayaa laga haray oo safaaraddu waxay sahlaysaa in ay noqoto meel lagu soo koobo dhaqanka luqadda iyo soomaalinimada waxa ay tahay ayadoo la qorshaynayo mustaqbalka in la sameeyo barnaamijyo ka turjumaya luqadda dhaqanka iyo soomaalinimada waxa ay tahay marka waxaan rabnaa inaan ogaano Yurub ama dalka Netherland ama Belgium oo ah dalka aan joogno dabcan annagu waa nimid laakiin waxaan kaga tegi doonaa ubadkeennana foundation aan u samayno ama saldhigga aan u samayno unbay ama kuwada imaan doonaan ama ku kala tegi doonaan marka gurigan wuxuu noqon doonaa guri mideeye ah oo annagoo dhanna mideeya carruurteennu ay noqdaan meel ay gurida ku soo hirtaan oo ay dhahaan annagaa iska leh qofna yaan lagu hadlaynin da'diinna yar iyo da'dii hore oo ah dadkii meesha yimidna fadlan qofna yaan lagu hadlaynin arrintaanna ha loo wada istaago waxaana mahad iskale ilaah ka sokowna intii u istaagtay oo isku xilqaantay inay arrintan siiso ahmiyadda ay leedahay dabcan dowladnimadu kama soo harto dadka oo dowladda dhabta ah waa adinka annagu waxaan nahay adeegayaal oo adinka idin adeega marka intaasaan rabaa inaad arrintan aad ku darsataan adinkaana iskale adinkaana dhaxalkaas u haraya midda xigta dabcan dalkan Yurub Netherland ama Belgium oo aan matalno markii aad ka qayb qaadataan dhinacyada kala duwan ee nolosha bulshada dhaqanka iyo siyaasadda unbaa dalkiina wax ku tari kartaan marka waxaan ku boorinaynaa inaan sida aan nahayba hadda aan sii xoojinno sharafteenna iyo karaamadeenna aan kula joogno dalalkan martigeliyey oo na siiyey amni waqti aan aad u nuglayn inkastoo hadda dalkeenna uu soo kabanayo oo ay tahay meel aad ugu noqon kartaan laakiin marna ma iloobi karno dalalkii ama dalkan martigeliyey markii dalkeenna uu aad u nuglaa marka markii aad ka qayb qaadataan arrimaha kala duwan ee bulshada dhaqanka dhaqaalaha siyaasadda
ayuu keenina wuxuu siinayaa ahmiyad ugu dambayn anoo og in la wada sugaaya in la dhegaysto da'da yar ayaan waxaan rabaa adinka ka qaybgalayaasha inaan idin mahadceliyo waqtigiina qaaliga ah inaadna siiseen caawa ay isku imaadeen waxaa ii muuqata dadka inta badan inay yihiin hablo ama dumar ama gabdho taasna waxayna tusaysaa dalmisayaasha inay yihiin gabdhaha annaguna adinka aadna hagtaan marka aad ayaan ugu mahadcelinayaa kaalinta dumarka Soomaaliyeed ay ka qaataan qayb walba oo bulshada ka mid ah taasna waxaa caawa daliil u ah in hogaamiyaha arrintan iyo mideeyaha ay tahay Marwa Ruqiyo Cadow dadka ugu badan ee meeshan joogaana ay yihiin dumar ama gabdho taasoo na tusaysa lafdhabarta iyo waxa isku haya ummadda Soomaaliyeed inay yihiin dumarka awgeed oo hambalyahan leeyahay gabdho dumar aad ayaa u mahadsantihiin mar walba annaga adinkaan idinku tiirsanahay waana mahadsantihiin dhammaantiinna aad u mahadsantihiin sidoo kale dadka fududeeyey inay ka qayb qaataan dhinaca miidiyaha kaameramanada xayiriyaasha ayagana aad ayaan ugu mahadcelinaynaa marka waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan dhaho yaan la dhayirsanin ahmiyadda ay leedahay isku imaanshaha midnimada iyo isku duubnaanta waxaa idin leeyahay xaflad wanaagsan iyo waxaan rajaynayaa in arrintaani ay hadda tahay bilaaw oo keliya aysan noqon markii ugu dambeysay ee la isugu yimaado arrintan oo meesha ka sii wadaan qof walbana uu iskiis isku xilqaamo waxaa la ii sheegay inay arrintan tahay isxilqaan oo aysan ahayn mas-uuliyad saaran oo keliya dadka isku bilaabay hawshaan hawl walba iyo arrin walba dad ayaa bilaaba laakiinse waxaa la wareega ama sii wada dadka intiisa kale marka waxaan rabaa in aad adkaysaan sii socoshada dib u dhiska hoyga safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee xarunteedu tahay Brussels Belgium waa mahadsantihiin habeen wanaagsan